waa soo koobayaa waqti badan ma jiro dastuurka waxa weeye intiisii ugu dhibta badnayd waxaan isleeyahay waa dhiman tahay intaanuna hawsheeday leedahay marka qodobadan toos u galaya qodobka 11aad oo ay ka bilaabanaysay waxaa qoran faqradiisa koowaad marka akhrido waxay ka hadlaysaa muwaadiniinta oo dhan xildhibaano badan baa sheegay waan adkaynayaa maxaa yeelay adkayntaasi hadha waxay saameyn ku yeelanaysaa wax ka bedelidiisa muwaadiniinta oo dhan ayagoo aan loo eegin lab iyo dhadig amada meeshii uu ku daray xildhibaanku waa qabaa diin baa ku qoran marka aniga waxaan isleeyahay diinta kiiskeedii waa xirnay dhanka muwaadiniinta oo diinta dalka iyo dowladdu waa islaam baan nidhi sidaa daraaddeed meesha muwaadiniinta qof kasta ama cid kasta ha la yidhaahdo oo muwaadiniinta ha laga bedelaan qabaa oo arrintaas halkaas halloo sidaa ha noqoto qodobkan isla qodobka 11aad faqradiisa koowaad iyo faqrada labaad wax badan oo macnaha kuma kala duwana waa isku mid sida muuqata sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay iyadana wixii laga qaban karo ha laga qabto waxaan aad u sheegayaa dastuurka waxaad moodaa sidii novelkiibuba u qoran yahayba meelaha qaarkood sheekaa ku qoran allah subxaanahu wa tacaala iyo waxa weeye si sheeko abuu u qoran yahay marka waxaan isleeyahay ha lagu celiyo siiqo qaanuuneed haddii guddiga ay capacitigooda ka baxsan tahayna ciddii ay la kaashan karaan ha la kaashadeen faqrada afraad gebi ahaanba ha la saaraan qabaa waa ognahay oo dalkeenna waxa ugu badan oo dhibaatadu ka jirtaa ma aha waxa inoo qorane waa sida loo dhaqmo weeye awoodda dowladnimada sidaynu u adeegsanno weeye qodobkaanu marka wax badan buu waxa weeye loo adeegsan doonaa oo wax lagu dhimi karo waxaan isleeyahay qodobkan ha la tirtiro oo la soo kordhiyo waa faqrada afraad qodobka 12aad oo ka hadlaya dhaqangelinta xuquuqda asaasiga faqradiisa koowaad waxaan qabaa sidii tii horaa ila waa aniga ila maxaa la yidhaahdaa faham fiican sidii hore ha lagu celiyo sidiisii hore ha loo daayaan qabaa qodobka maxaa la yidhaahdaa marxaladda labaad qodobka 13aad qodobka 13aad waa meelaha aan leeyahay dastuurku novel buu u ekaaday oo buug sheeko ah baad moodaa wuxuu faqradiisa koowaad leedahay qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay nolol hoos waxaa ku qoran noloshii baa la fasirayaa dastuurka fasiraadaha kuma shaqeeyo anigu waxaan isleeyahay hal faqra ha laga dhigo ha la yidhaahdo qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay nolol waa xaq dabiici ah halka intaa kaloo dhan meesha ha laga saaro hal faqrana ha laga dhigo waa xaq dabiici ah oo aan qofna laga qaadi karin haddii aysan jirin asbaabo xeerku tilmaamayo aniga hal faqra ha laga dhigaan qabaa oo waxa weeye meeshaan sheeko baralayda badan oo ku qoranna ha laga saaro arrinta ka hadlaysa ilmaha maxaa la yidhaahdaa iyo hooyada isku xanuunsada guddiga waxaan la qabaa dadkii yidhi ha laga saaro dhakhtar shaqadaas yaqaanaha loo daayo faqraha daaye aan u malaynayo sanataraddu inay sheegtay baa jirta qodobka 14aad faqradiisa labaad sida ay ka sheegtay aniga waa fahmi waayey waxa weeye dastuurkana dhowr jeer baan nidhi waxaan rabnaa inuusan noqon wax ummadda soomaaliyeed garan weydo oo fasir ugu wada baahato ee uu ahaado wax la wada garan karo wixii markaas u baahda fasiraad dheeri ana maxkamadda dastuuriga oo shaqada kule lala aado qodobka ka hadlaya isla qodobka 14aad oo xorriyadda iyo nabadgelinta maxaa la yidhaha nabadgelyada qofnimada waxaan isleeyahay qodobkaas qaybtiisa gudniinka fircooniga ka hadlaysa loomaba baahnay meesha ha laga saaro dastuurka gudniinka fircooniga iyo waxaa gudniinadan uu ka sheekaynayo ama wax uniform ha noqoto oo faqro gudniinka oo dhan ka sheekaynaysa ha la qoro ama ha laga wada saaraba dastuurkan aad moodo NGO-gii gabdhaha iyo waxa weeye shaqadii bannaanka ka jirta ceeb weeye waxaa dastuurka ha laga saaro shareecada islaamka iyo diinta waxay qabto baa dalkan sharci iyo xeer u ah kaasaa dhaqaaya sida laysu gudaayo noocuu noqonayo gudniinku uma baahna dastuurka mabda'na ma noqon karto gudniin fircooni in dastuur lagu qoro ha laga saaraan qaba aniga faqrada qodobka 15aad oo ka hadlaya xorriyadda ka mid noqoshada waxaa ku qoran qof kasta hoosna waxaa ku qoran xisbiye siyaasadeed qof kasta wuxuu ku biiri karaa qof kasta waxaan isla sheegnay
cid kasta oo jamhuuriyadda ku nool inay tahay marka dadka aan muwaadiniinta ahayn ma ku biiri karaan xisbiyada siyaasadda. halkaa waxaan qabaa qof kasta meesha ku qoran iyadana ha laga saaro oo ama muwaadiniinta ha la dhaho ama siiqo kaloo lagu kala saari karo ha la sheego. qof kasta oo dalkan ku nool kuma biiri karo, cidduu rabo kuma biiri karo. qodobka 17aad oo laga hadlay oo la tirtiray aniga waxaan qabaa in la soo celiyo. waa la sheegay si qoto dheer baa xildhibaanadu uga hadleen oo ugu dambeeyey xildhibaan Beerey. diinteenna suubani waxa ay dhiiri gelisaa wada noolaanshaha, waxay dhiiri gelisaa tacaayush silmiga. marka annaga inaan dadkii faquuqno, dadkana la noolaano, dana badanna ka leenahay, maxaa la yidhaahdaa wax badan oo dalkeenna horumarkiisa ku xiranna ay ku xiran tahay, mana noolaan kartaan oo ma cibaadaysan kartaan ma qabato. aniga waxaan qabaa halkaa faqradaas siday ahayd ha loogu soo celiyo. qodobka 16aad faqradiisa labaad waa soo koobaya. meesha waxaa ku qoran qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu si xor ah u soo bandhigo aqoontiisa ama hal abuurkiisa faafreeb la'aan. warkaasu meel dheer buu inala aadayaa. waxa weeye waxaa qofku uu soo bandhigi karaa wax dadka iska horkeenaya oo fidno abuuraya. wuxuu qofku soo bandhigi karaa wax mukhil canil maxaa la yidhaahdaa sharaf iyo caqiidada ah. aniga waxaan qabaa faafreeb la'aan ha laga saaro halkaa. faafreeb la'aan meel dheer bay aadaysaa, dadka waxay siinaysaa xorriya mudlaqa oo suurtagal ay tahay in wax badan ay ku hallaabaan. qodobka 17aad waxaa qoran meesha waxaa ku qoran qofka hoygiisa ama meelaha kale iyo waxyaabaha uu gaarka u ah. waa fahmi waayey nin waxaan kala hadlay guddiga ka mid ah siduu ii fahamsiiyey. marka aniga siiqataa ka duwan baan isiri ha loo dhigo qofka hoygiisa ama agabkiisa iyo goobaha kale ee gaarka u ah loo qoro. saasaan qabaa. waxyaalaha kale macno badan bay leedahay. marka kelmadaha jiidjiidka badan geli karo in la koobo meelaha kale. waxaa laygu sheegay xafiisyada shaqadoo kale, goobaha kale oo uu ka tirsan yahay. marka goobaha kale ee gaarka u ah ha la yidhaahdaan qabaa meelaha kale iyo waxyaalaha kale waxa la yidhi. isla faqradiisa labaad oo waxa weeye qodobkan oo la tirtiray aniga waxaan qabaa in la soo celiyo. maxaa yeelay qodobka 34aad eedaysane iyo wax kalu ka hadlaya. sidaa daraaddeed faqradan labaad oo la tirtiray ha lagu soo celiyaan leeyahay. qodobka 19aad faqradiisa koowaad wuxuu leeyahay qof kasta oo dalka sifo sharci ah ku jooga wuxuu xaq u leeyahay in uu dego meesha uu rabo, kuna dhex socon karo dalka gudihiisa si xor ah, ugana bixi karo dalka goortii uu doono. waxaan qabaa sidii xildhibaan Fawsiye sheegtay dad badan oo noocyo kala duwan la dalka ku noolaan kara, dana ijraama iyo wax kale looga shakisan yahay ku noolaan kara. waxaan qabaa aniga in la qayido oo la yidhaah halkaa gadaal laga raaciyo haddii aysan jirin sabab sharci oo diidaysa. intaa in gadaal laga raaciyaan rabaa oo la qayido oo aan dadkaas iyagana la siin xorriyad waxa weeye dhammaystiran. qodobka 20aad faqradiisa 3aad waxaan qabaa ha la tirtiro oo looma baahnaan aniga qabaa qodobkan faqradiisa. maxaa yeelay waxaa ka hadlayaba qodobkii aynu soo dhaafnay oo afraade ahaa sarreynta dastuurka. qodobkan wuxuu leeyahay xuquuqda ku xusan faqrada 1 iyo 2 ee qodobkan waa in lagu dhaqmaa si waafaqsan dastuurka. waxaa isleeyahay looma baahna in halkan dastuurka shaki la geliyo oo qodobada qaarkiis in si gaara loogu dhaqmo la qoro. waxaan isleeyahay waxay xumaynaysaa dastuurka habka loo dhigaye ha laga saaraan qabaa. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.